بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال halkan waa telefishinka caalamiga Home Cable TV. waxaanu si toos ah idinka soo waramaynaa magaalada Muqdisho. waxaanu halkan idinku haynaa wareysi gaar ah oo ku saabsan mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ee ka dhisan Soomaaliya. sidoo kalena ah siyaasiyiinta waaweyn ee magaca ku leh saaxadda siyaasadda ee Soomaalida. waxaanu Cabdiraxmaan Cabdishakuur muddooyinkii ugu dambeeyay kamid ahaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. haddaba iyadoo ay jiraan arrimo la xidhiidha falgallo ay xukuumaddu ku qaaday gurigiisa iyo sidoo kalena go'aamo ay maxkamaddu ay soo saartay ee ka soo saartay howlgalka lagu weeraray gurigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxaa jira haddana ilaa ay hadda isfaham dhinaca sharciga ah oo u dhaxeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre gaar ahaan maxkamadaha. haddaba waxaan weydiinayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan ku soo dhaweynayo Home Cable TV bal marka hore in uu nooga warramo maxaa keenay dhibaatada la xidhiidha mucaaradada intan leeg iyadoo xukuumaddu sanadkii ugu horeeyay ay haatan marayso oo aanay dhamaysaninba. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa mahadsantihiin bahda Home Cable. runtii de wixii magaaladan ka dhacay waa warbaahinta u wada joogtay. habeen saqdhaxa gurigeyga la soo weeraray aan hadda meesha aan ku qabanayno wareysiga aan ka fogay ciidamo ilaa 10 ah sodomeeyo ku dhow gawaari gaashaaman oo kuwa ciidanka ah habeen saqdhaxa soo weeraray gurigeena ayadoon wax digniin ah aan qabno aysan jirin. markii ugu horeysay dabcan shabaab aan u haysanay afkii u duubnaa isma lahayn ciidan dawlad ka socda iyo asaas u dhaqmaya mana maqal taariikhda Soomaaliya intaan akhriyay ama intaan u joogay wax noocaas oo kale taa mana maqal mana arag. dad bay ku laayeen meesha saad maqasheen 6 ruux 5 ilaaladeeda kamid ah oo ciidanka xoogga dalka ka tirsan iyo gabar masaakiin oo jidka maraysay. subaxiiba way aaseen meedkii qabuuro ama xabaalo waxay ku aaseen wadareed ayadoon la dhaqin lagu dukan ehelkoodii la tusin. waxaa ku xigay aniga xarigayga ama afduubkayga sababtoo waa afduub maadaama xariga uusan wax sharci ah ku dhisnayn. sidaa la socotane maxkamaddii markaan isla tagnay waxaa soo caddaatay inay wax haba yaraatee lagu hayo aysan jirin oo wixii ugu yaraa oo ah waran maxkamadeed ama amar soo qabasho maxkamadeed inaysan haysan dawladda ama qolada isoo weerartay. ilaa hadda ma garan karo falceliska intaas la eg waxa keenay oo aniga aan u haysto inuu ahaa isku day dil. qof kasta oo Soomaali ah oon arkay ama intaan ismaqalnay ama inta gaari kara maaragtay hadalkayga ama ajnabiga beesha caalamka dad badan oo iska aragnay kamid kulli la aaminsan yahay in isku day dil ay ahayd. sababtoo qof u fasirta waa la waayay waxaas ayaa ah qof la soo xirayo wax u agtoona. taas ayaa dhacday. maxkamadihii waad la socotaa wax haba yaraatee sharci ah ma aysan horkeenin. taa waxaa dheer dadaal odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ee labada dhinac waqooyiga iyo koonfurta loo aqoon jiray oo isku tagay. madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle oo markaa ayaga joogay iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xildhibaanada deegaankan ku aftirsado ilaa 40 ahaa dadaal dheer la galay in lagu dajiyo falceliskii dadka shacabka ka imaanaya ama community-ga inaysan wax dhicin magaalada. sababtoo ficilka la sameeyay wuxuu ahaa ficil markiiba jawaab ay ka imaanaysa bulshada aad u foolxun. marka xasilintii magaalada iyo waxaas oo dhan ayaa cadaadiskii dawladda fuulay waxay keentay inay habeenkii ku xigay xabsiga iga sii daayaan meesha igu hayeen oo xarunta nabad sugidda. odayaashii isku tagno dawladdii cudur daarato maxkamaddii dambi la'aan ay soo dhigto. marka intaas markay dhacday haddana dawladdii malaha wixii la xumaaday waxay bilowday in go'aankii maxkamadda oo wax rafcaan ah aan la ogolayn asagoo qaadiga markaa xukun gaaray xiganaya qodobka 13aad iyo xeerka habraaca ciqaabta Soomaaliyeed in dacwad laga furo xeraaliye uu ka furo maxkamadda rafcaanka. aad aragteen maxkamaddii inay tiri 90 cisho baaritaan ah ku qasabtay qareeno aniga aan qabsan ayagii qareenadii hadda ay kala taagan yihiin. marka waxaa la iska dhigi karaa waa wax
lasoo abaabulay abaabul siyaasadeed shirqool ahaa markii hore in la dilo la isku dayey kabacdina loo bedelay in sumcaddayda lagu dhaawaco laakiin wax cabdiraxmaan hadda wax u dhimaayo waxaasoo dhan ma ahayn waxaad sheegtay inuu ilaa isku day dil uu gaari karayey ama aad ku eedeynayso in la sameeyey maxaa ka dambeeyey ee awoodda intaa leegee aad taagan tahay inuu ilaa heerkaa gaadhay aad is oran kartaa way kalifeen oo lagugu soo weeraray ama lagugu yimid ama ay tahay maxaa laga shakisan yahay halkuu gaariyo waa ilaa hadda waxa aan isweydiinayno dowladdii markay timid maxkamadda xeraalintii timid waxay ugu eedeeyeen 184 qodobka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah inaan dowladda afgambinay inaan ku soo duulay madax banaanida qaranka Soomaaliya sida artikelkaas ama qodobkaas qabo waa inaan ciidan soo kaxaystay jamhuuriyadda Soomaaliya aan ku soo duulay calankii dejiyay calanka la taagay waxay la mid tahay tii markii uu qabsaday xukunka militarigii lagu qaaday saddexdii oday militariga inqilaabka wax ka keenay Salaad Gabayare iyo daal iyo ninkii odaga ahaa saddexda dan xasuusto lagu qaaday xukunkii waa unkii mid lamid ah anigu militarina ma ihi afgambina kama qayb qaadan ciidanna ma abaabulin duulaan aan soo qaadana ma jiro laakiin qodobka la adeegsaday intaan maqashiisanay taariikhda Soomaaliya nimanka uun baa loo isticmaalay 184 intaan ogahay marka waxa dowladda la rabaa in la weydiiyo waxa article ama qodobka 184 aniga nin afgambi dowladda ku ridaaya aan ahay waxay kaloo sheegteen in aan dowlad ajnabi ah oo cadow ah aan la shaqeynayay oon soo horseeday oon dagaal ku soo qaaday dalka ilaa hadda maxkamaddii markii la tagay la weydiiyey xeraalintii dowladda ilaa hadda dowladda cadowga ah oo aan anigu la soo shaqeeyo la soo duulay ilaa hadda way sheegi laayihiin ma Kenya ma Ethiopia ma Djibouti ma dowlad kaleeta cid ilaa hadda sheegtay waan garan la'nahay waxyaalaha aan dalbanayno dowladdu inay caddayso cidda cadow ku ah dowladaha cadowga ku ah inay noo sheegto alle muwaadinka Soomaaliyeed sax waaye hadday jirto dowlad cadow ku ah dowladda Soomaaliya inuu la macaamilo sharciga uma ogola laakiin waa inay dowladda sheegtaa cidda cadow ku ah ayada ay ku soo duushay oo duulaanka ku ah waa inay caddaysaa si rasmi ah hogaamiye khibrad baa dowladda u leeday wasiir baad soo noqotay madaxweyne aad u tartantay xisbi dhan baad wadajir baad hogaamiyowtay iminka siyaasi si fiican u koray oo taariikh fiican kula baatay iminka waddanka taariikhdan casriga ama sanooyinkan casriga ma la fahmi karaa ciddad adigu xidhiidhka la leedahay ay dowladdu eedeynaysay leedahay cid cadow haddii ay dowladdu qariso ama cabsi u qariso ama dowladdu u qariso istiraatiijiyadeeda siyaasadeedba waxay sheegtay xataa inay xildhibaano dalal shisheeye lacag ay ku soo siisay jiraan adigana xidhiidh lagugula samaynayo marka ma ogaatay ciddaas saxdee ay tahay ma dowladda afkeeda kama hayno sidii dokumentiyadii uu keenay xelaaliyaha ama madaxda intay hadlaysay Soomaaliya ama wasiirada hadlaya arrintan ka hadlaya ama intay hawsha socoto dhan magac dowladeed wali anaga ma aanan maqal oo official ah marka anigu ma raba inaan iska mala awaalo dowladda ay tahay laakiin dowladda laga rabaa cidda cadow ku ah oo ku soo duushay qarannimada Soomaaliya madax banaanideeda inay sheegto annaga hadda dowladan ognahay ee dowladda Soomaaliya sheegtay inay cadow ku tahay ma jirto xildhibaanadii markii la geeyay golaha baarlamaanka la weydiiyay xeraalihii la yiri si xasaanada loo qaado xildhibaanada waa inaad sheegtaa dambiyada ay sameeyeen wax cadayna waa la hortagi waayey gudoonkii baarlamaanka taas loo daaqada looga tuuray warkii oo meesha la yimid marka ilaa hadda waxaan garalanahay cidda dowladda Soomaaliyeed ku soo duushay oo cadowga ah anaga nooma cad laakiin hal waxa noo cad in dowladda hadda jirta oo farmaajo hogaamiyo iyo Xasan Khayre ay diidan yihiin in ra'yi ka duwan oo soo muuqdo waana wax ugub ku ah Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya 10kii sano ee kumeel gaarka ku jirtay iyo dhowrkii sano hadda ugu dambeysay ka baxday mucaaradadu way furneed dadku ra'yiga way dhiibanayeen campaignka wuu socday xindaabka dastuurka wixii ku jira dadku waa loo ogolaa madaxweynaha hadda talada ka degay Xasan Sheekh madaxweynaha loogu mucaarad badan yahay ayuu ahaa sanad asoo joogna lagu abaabulay mucaaradnimo Nairobi Soomaaliya dalka gudihiisa gobolada ku kacay siyaasiyiin ku kacay siyaasiyiintaas mucaaradiisa farmaajo kamid aha
oo si furan u mucaaraday anaa ka mid ahaa cabdiraxmaan abshakuur kan ku hor fadhiya si la yaqaano oo maaragtay aragti leh yaan u mucaaradaynay hal maalinna cid uu ku duulay ama cid uu xiray ama cid uu dilay ma jirin laakiin waxaa ii muuqata dowladda inay ku jirto cuqdad ah linma aqoonsana cuqdad waxaa ku jirta ah waa lin aqbali la'yahay dadka siyaasiyiinta ama dadka awoodaha siyaasadeed dalka ku leh ama dowlad goboleedyada ama siyaasiyiinta waa lin aqbali la'yahay waxaan u qaatay dad ismuujinaya inay awood leeyihiin oo isyiri muujiya dad laga cabsanayo awood leh inaad tihiin muujiya saas inay ka wadayna ila tahay aniga waxa ay sameeyeen dhinaca kale maan laga eegi karin oo la odhan karin cabdiraxmaan cabdishakuur deegaankaad ka soo jeedo waxa culays ay ku saareen ra-iisul wasaare khayre iyo farmaajo inaad idinka laftiinu mucaaradadiina iyo awoodda deegaanka ee muqdisho ahaan ama deegaan ahaan aada muujisaan inay mucaaradad hor leh oo aan hore ugu dhici jirin dowladda xasan sheekh sheegayso sanadkii ugu dambeysay ku dhacday inaad muujisaan aad awoodiina kor u qaadaan aad codkiina kor u qaadaan idinkoo doonaya inaad awood dheeraada ka heshaan xukuumadda taasi ma jirtaa sideedaba waxaan kuu sheegayaa soomaaliya sidii loo bilaabay dhismaha nabadda iyo dowladnimada soomaaliya loo soo celiyey oo broceskii ama howlihii kumeel gaarka ah loogu soo jiray ilaa yowmina hada maantadan aan joogno dowladnimada soomaaliya dhowr jeerna waan sheegay waxay ku dhisneed is-ogol iyo isla guddoomin sababtoo ah ma jiro madaxweyne lasoo doortay dadku ay soo doorteen ma jiro madaxweynaha waxaa doortay 275 xildhibaan hadda farmaajo waxaa kusoo kordhay 250 aqalka sare ah marka waa doorasho dadban dadku marka weli ma gaari madaxweynaha inuu helo mandate ama ogolaasho dadweynaha ma haysto siyaasaddu marka waxay ku dhisan tahay in la isku jiijiiday is-ogol ay ku dhisan tahay waad la socotaa 5 maamul goboleeda jira oo ka dhisan dalka awoodahooday leeyihiin xindaabkooda siyaasadeed ayagaa xukuma awoodda ayagaa leh dowladda federaalka wax badanoo awood ay ku leedahay marka laga tago magaca markii laga tago xagga sharciga laakiin awooday ku leedahay ma jiro weli magaalooyinka ay joogto muqdisho oo kale awoodaha siyaasadeed dadku weli si isma dhexgelin oo aad ah ciidan qaran soomaaliyeed oo loyaltigiisa ama ogolaansho ama daacad u ah dowladda ma jiro oo qaranka daacad u ah ma jiro weli waxaa lagu wadaa ciidankii dhismo dadku weli dhaawacyadii weli way yeelaan marka cidda madax ka noqonaysa soomaaliya maanta dhowr jeeraan sheegay waa qof jid aad traffic jamkiisa u badan yahay darawalka ah oo maanta oo dhan mashquul aad mashquul ah gaari ku wada waayo marka waa inaad dadka marba tartiib isaga leexisaa oo waxaan la yidhaha consensus building macnihii is-ogol iyo co-governance xukunka in laisla leeyahay tanaasulkaas ay ku dhisan tahay ayada dhan laakiin ninkii isku daya asaga inuu markii la yidhaha madaxweyneha tahay ama ra-isul wasaaraha tahay ama wasiiraha tahay u haysta inuu asaga xukun haysto ay ku soo dhacaysaba tii rejiimkii militariga waa qof qaldan aan soomaaliya inuu meel kale madaxtinimo ka raadsada loo baahan yahay annagu marka waxaan ka mid nahay xoogga siyaasadeed ee saaxada jooga maxaa nagu qasbay marka inaan hadalno dowladda ilaa muddo ku dha 7 bilood fariimaha annagu siyaasiyiinaan nahay siyaasadda ku jira ka shaqeeya u taaganaan nahay fariimaha si hoose oo dadban oo asluub leh oo naseexalan ugu gudbinayn laakiin maxaa noo soo baxday waxaa noo soo baxday farmaajo iyo ragga meesha yimid inay ku jiraan ololo siyaasadeed oo ah dadka inay sumcad dilaan dadka siyaasiyiinta oo mucaaradka ah 7 biloodan waxaan u dulqaadanayna weerar annaga nagu socda oo social warbaahinta social media waxaan la yidhaahdo warbaahinta bulshada waxaad uga jeedaa sumcad dilaan waxaan ula jeednaa weli waxay ku jiraan ololihii doorashada dad waxay u ekaayeen moogtahay qofka markii uu xukunka raadinayo ololo ku jira laakiin markuu xukunka helo governance yaa laga raba inuu xukumaa laga raba lagama rabo inuu campaign iyo dacaayad iyo baabaan iyo riwaayad galo nimanka kan niman dacaayad iyo campaign dhalinyaro badan oo 200 loo qoray baraha warbaahinta si ay dadka siyaasiyiinta u discredit gareeyaan oo sumcadda ay uga dilaan waxaa la sameeyey in maanta oo dhan la eedeeyo dadka aan ahayn dowladda la eedeeyo ama maamul goboleedyada waa ogtahay 2 maamul goboleed isku daya inay ridaan in dadkii ka horreeyey talada ugu horreeyey inay maanta oo dhan eedda ayaga dusha saaraan dadka siyaasiyiinta oo la yaqaano isleeyihiin codkooda waxayna dhimi karaan inay ayaga sumcadda ka dilaan marka weerar ayaga ahaa ayagaa weerar dowlad mucaaradaan aragna annaga saa u joogna hogaamiye maan la odhan karin culayskaad idinku dowladda saarteen amaba mucaaradadii aad dowladda ula tagteen oo aad
awood badan iyadoo aad u isticmaasheen ama deegaan ha noqdo ama asxaab ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama maamulka dhinac walba ka kaalay inay taasi keentay inay dowladdiina dee aanay sugin fursadda ah in mucaaradadii dee ay ugu gasho xafiiskoodii laakiin dowladdii ay xaq u yeelatay inaanay gacmaha laaban ee ay iska kiina celiso oo iyada lafteeda barabagandadii ay lahaanaysay ay baraha bulshadii meel walba idinku weerarto waxaad leedahay markaa dowladdu iyo dhinaceeda iyaduna markan weerarnana soo weerarin baad leedahay caadi dowladdu annaga weerarku ma aanan bilaabin oo xagga horta weerarkan ka hadlayna ma xabadda ay la yimaadeen waa weerarka siyaasadeed in la isaga soo horjeedo fursad waan siina dowladda annaga laakiin meeshii la rabay wax qabad inay aado iyo wixii soo aaday inay mucaaradkii ayada inay sumcadda ka disho ay la dirirto ay bilaado barihii bulshada wiilal dhalinyaro iyo gabdho masaakiina lagu shaqaalaysiiyo dadkii lagu diro qaab qabiil loo abaabulo la iska dhigo dad maanta oo dhan baraha bulshada dhex taagan madaxweynihii ra'iisul wasaarihii xukuumaddii oo kambeynkeeda oo lahooda dhanba oo la baraha bulshadu iska noqday waana xukuumadda facebooka loo bixiyey igu sawiraa loo annaga maan bixin igu sawiraa loo boqolaal magaca la siiyey ayagay ahaayeen waxa isku dayaya dadka inay afka ku qabtaan ku caburiyaan warbaahintii ku caburiyaan waa la socotaa media dhan way iibsadeen marka aniga waxaan isleeyahay tii markay ku fashilmeen waxay u galeen inay tii xabadda haddana inkastoo media ay iibsadeen aanan caddayn karin laakiin haddana adiga laftaada facebook waad isticmaashaa twitter waad isticmaashaa aad iyo aad الحكومة يستعملها دنيا هذه بالشدة أمريكا مركا محاكو تبان إن إذا الحكومة في سبيل هذه جامعة أنا هذا استعماله صميان إذا مسك حقوق هاي rule of the game كأنا أقول لها كاس واي مركا هذا أوتميت إن اللي اسمه عارضه حكومة ده أنا أتاكته أنا عن دليلنا لكن حينداب الدستور كأنه هذا ورصح حكومة ده أنا وحن كجوابها كليه محا حكومة ده لو قبل عبي دليشة أيضا وارك صوب بلاد حكومة ده دين أنا وحن كو قصبناني إن أسكت دفاعنه أنا عدينه ضدك واحد لو شيء هو هذا هو ترى بدن إن يسوح بك جيرين وهذا كيس صوته مسؤولية قفك معارض كوحيتها إنه فيه ما لها حكومة ده كجابين يسو iyo oo soo saaro qaradaadka ay galayso sida ayaga iskaga hor imaanayso maalin waxay ku leeyihiin shabaabku waxaan u xoreynaa dalka maaragtay dhowr bilood haddana waa la soo noqon lagama adkaa karaa lagu leeyahay dadka marka waa inaad qabataa magaaladana xasilinayna inaan lagu leeyahay taliyaashii ciidamada hal subax la raacdaynaya haddana kuwii kale ilaa hadda lama magacaabayo marka dadka waa inaad u sheegtaa mas-uuliyaddaada waxay tahay meesha ay dulduleelaha ka jiraan meesha ay dhibaatada halkay ka imaanayso dadweynaha mas-uuliyaday kugu leeyahay waa mas-uuliyad dastuuri ah waa mas-uuliyad akhlaaqi dadka inaan u cadayno midaan ogolnahay marka annaga in xuduudda dastuurka uu saamaxayo iyo dimuqraadiyadda iyo nidaamka ilbaxnimada in geymka ama cayaarta lagu wada cayaaro laakiin nimankan waxay la yimaadeen wax tii ka baxsan oo ah saqdhaxan la isku soo dhaco xabad la isku rido dadkii la xasuuqo taas waa midda anagu aan diidanahay adigu sharciga ma diiday markii lagu yimid cabdiraxmaan cabshuur hogaami markii guriga la yimid ciidanku yimaadeen ma lagula hadlay waraaq sharciya maa lagula yimid mid maxkamadeed maa lagula yimid miyaa lagu dhageystay maxaa lagu yidhi horta saqdhaxa warqad maxaa keenan lama keeno sharciga soomaaliya warqadda maxkamadda oo 7 fiidnimay ku ag tahay warqad maxkamadeedna maba jirinba maxkamadda ay ka hor cadeeyaan maba haysaninay dheheen warqad maxkamad ina diiday baa la sheegay maxaan badiidaa xabad baa ugu bilaabatay cid ila hadasha xataa feerbali qof ila xiriirtay ma jirto ilaa haddeertaan gurigeyga waxaan ka war helay xildhibaanaa ila joogay hal xildhibaan dad kale oo asxaaba ila joogay xisbiga dad ka tirsanaa ila joogay annaga xabad baan ka war helnay maba maqalba xataa hadal yar iyo qof aan iswadaarsanay ma jiro xabad dhacayso baan ka hadlay ilaaladii la dilaan ka war helnay 35 daqiiqo gurigeena la xabadayna afarta koon inta laga istaagay afarta dhinac xabad lagu lisayo nooc kasta hub loo adeegsanay magaalada dhan ay argagaxdaan ka war helnay marka maba jiri karta sabab ay saas u dhacdo hadaynan ahayn arrin lagu talagalay shirqool dadka meeshaas wax joogay aniga aan kamid ahay in lagu wax la yeelayo oo lagu dilo way maxkamadii rafcaanku imika waxay soo saartay 90 shabaaritaan la sameeyo oo xeer laalintii way ogolaatay inay fursadaas ay qaataan adu maxkamadda waa diiday inaad tagto in muwaadin baa tahay xisbi wada jir baad leedahay xisbigii wuxuu ku dhisan yahay dastuurkii iyo qawaaniintii Soomaaliya ku dhisan yahay adigu madaxweynaad u tartantay sharcigii wasiir baad soo noqotay dowladnimadii aqoon baad u leedahay maxkamad gobol oo ku fasaxday oo go'aan soo saartay waa difaacaysaa maxkamad sharciga oo iyaduna dib kuugu yeedhayna waa diidaysaa marka miyaanay ahayn wixii adiga fursad ku siinaya siyaasadaada iyo danaha adu aad leedahay amaba jaaniska aad leedahay taageerayna ogoshahay wixii kale ee ka soo horjeeda ama sharciga kale dhinaca kala raacayana
inaad diideyso oo sharcigii midna aad ogoshahay midna aad diideyso miyaanay noqonaynin laba maxkamadood oo kala sarreeya saas ma aha aniga maxkamadda subaxi intaysan fasixin dowladda ayada ay fasaxday habeenkii ayaa iga sii daaya xabsiga rabitaan odayaasha dhaqanka ee magaalada madaxweynayaasha gobolada gudoomiyaha gobolka xildhibaanada communitiga hadda aniga aan meeshaan joogo matala oo aanan kala har lahayn cadaadis ay saareen dowladda igu sii daysay waa la socotaa xukuumadda cudurdaar ayay isiisay marka maxkamadda markii la tegey wixiina fiirisay weyse waa isii daysay marka case meesha yaalla oo sharci ah maba jiraba marka abaabul kale in aniga xeer ilaaliyihii inta habeen saqdhaha ciidan ii soo diro haddana isii daayo habeenkii ku xigay wasiirkii xukuumadda subaxii lahaa waa sharciga loo qabta habeenkii ii cudur daarto maxkamaddii subaxii isii daysa haddana la yidhaha mid kalaa ku haysata waad garanaysaa inay iska tahay lucbo siyaasadeed marka anigu maxkamad sharci islaam iyo sharcigii noo yaalla aan ku qotomin siyaasadaysan waxaan u aada aniga ma garanay taas waxaa dheer ilaa hadda weerarkii dadkii la laayay dadkii la dilay maxkamad qaadaysa maad aragtay xilaalyaha markaan arkay wuxuu ugu yidhi anigu ma amrin in lagu soo weeraro ama gurigaada lagu yimaado maan amrin maxaad amartaan idhi wuxuu yidhi waxaan amray inaad hor timaado xilaalinta maxaa habeen saqdhexe la ii soo weeraraan ku yidhi wuxuu ugu yidhi habeen saqdhexe aniga ma ogi sababta lagu soo weeraray waxaan ku yidhi haddaba askartii iyo saraakiishii iyo ciddii isoo weerartay adaa xilaaliyihii qaranka ahe ku soo oog dacwad soo dambaysa dilin haa soo dhibaato ma egeysan haa waxaa iga hortaagan waxaan u furo karin dacwad ciqaab maxkamad kama furo kartid dacwad ciqaab waa inaad xilaalinta marisaa ilaa hadda xilaalinta in dacwada inaga qabato waa diidanta laakiin waad u gudbisay haa waaba diidanta ma ogola inay qabato dhaqdhaqaaqaaga waa la xayray ma bixi kartid miya imika wax ka jira lama arko anigu dastuurka ii saamaxaya dastuurka wax ka weyn dalka ma jiraan ma lagugu wargeliyo ma lagu keenay xorriyadda dhaqdhaqaaqa muwaadinka inuu xor yahay inuu dhaqdhaqaaqo ra'yigiisa cabiro xor u yahay inuu xisbiga siyaasadda rabo oo galo waa artikale ku yaala dastuurka waaye cidda marka jebinaysa asaka dastuurka waxaan ku ixtiraamaya walaalo maxay tahay waxaan ku ixtiraama qofka jebinaya dastuurka artikale ku yaala aniga xorriyaddayda dastuurka damaano qaaday inaan dhaqaaqo inaan dhaqaaqo way hadda miyaanay iska hor imanaynin xuquuqdii dastuurkeed aad ugu doodaysay iyo inaad qarankii kusoo duushay inay dowladdii kuga eedayso miyaanay dastuurka adigu aad u doodayso ku duuritaankiisa dhinaca kale lagaaga eedayo oonad waafaqsanin oo taa diidan tahay imka lacagaa lasoo qaatay baa laleeyahy oo laga soo qaatay wadamo shisheeye dowladda lagu dumiyo mucaarad lagu kiciyo dad lagu abaabulo gobollo lagu abaabulo maamul goboleedyo lagu abaabulo waxyaabahaasoo dhan cabdiraxmaan cabshakuur haddana si dadban marka meel adigu farmaajo lacagta uu ku qaybinayo hotel jazeera farmaajo markuu kambeynka ku jiray lacagta hotel jazeera ku qaybinayo publicly xildhibaanada ka qaadanaya aduguna musharax madaxweynadeed wax laga dhinaca kale ka qaybinaysay taas miyaanay jirin musharax kasta may waxaan kaa rabaa inaan ogaa hadda asaa xilka haya waxaan kuu sheegaa weliba macluumad ahaan xog ahaan murashixii ugu horreeyey lacag in la qaybiyey bilaaba asaga waay hotel jazeera public la fadhiyo gurigan soo weerar hadda igu soo weeray guriga ku xiguu deganaa kambeynkiisa xildhibaanu lacagta siinaya laakiin dee waxaan rabaa marka inaan ogaado dhaqanka Soomaaliya inta badan saa ku salaysnaa dowladihii ka horreeyay waa la wada bixiyay keligii u gaaraan hadduu ku salaysnaa dacwadin asaga laga bilaabayo marka sababtoo corruption iyo musuqmaasuq ku soo baxay 140 xildhibaan oo laaluushtiya joogta baarlamaanka farmaajo laakiin anu ma cadeyn waa inaan maxkamadayna ha anu laakiin ma cadeyn saas tahay ha aan ku dhameeyo marka dambi anigu xildhibaano aan lacag siiya hadda maba jiraanba hadday cadeyn hayaan walaal maxkamaday keeni lahayn maxkamadda cadeyn keena la yiri cadeyntu way keeni waay laakiin sideedaba waxaan kuu sheegi lacagta asaga kursiga ku yimid hadda kursiga wuxuu ku haystaa lacag laaluush oo bixiyo siiyo dadka aan ognahay marka adiguna waxa doonaysaa inaad inta lacag u adeegsato aad kursiga aad ka tuurtaan ba doonaysaa anigu waxaan ku dhahay ma anigu xujo ay ugu hayaan ama cadeyn ay ugu hayaan inaan lacag isticmaalo ma jirto laakiin waxaan kuu sheegay anaaba sheegay dhaqanka siyaasadda Soomaaliya in lacag la bixiyo inaan la bixinin qadiyad kama ahayn laakiin meesha wax yaala waxay tahay annaga inaan cadeyna u baahanahay dadka Soomaaliyeed markasta ay joogaan inay dhageystaan isku dayga nidaamkii militariga ee la soo celinayo wadankan waa ogtahay waxa aniga ka dhacay hoygayga Soomaaliya hamar u bay ka dhaceen waa dad Soomaaliyeed intii militariga jiray
habeen gurigooda lagala baxay sodomeeye ah jaziiro la geeyey lagu laayay tuun bay lamid ahayd anigana waxay rabeen staafkayga say ula dhaqmeen inay ila dhaqmaan soo inta dileen subxii qabuuro ku aaseen ayagu waalidkood arkin anna saa un biyey lahaa ilaa iga bixiyey marka waa dhaqankan annaga waxaan diidana waxay tahay dhaqanka la rabo in la soo celiyo oo laga fekerayo farmaajo ku fekerayo inuu soo celiyo dhaqankii militariga soomaaliya u soo celiyo ayadoonan awooddii tabartii ciidankii iyo awooddii oo haystay dowladdii militariga aan haysanin marka waxaan dhihi karaa waa riyo aan maran dhaboobeynin laakiin intuu awoodo inuu ka shaqeeyo miyaanu xaq u lahayn waa riyo aan maran dhaboobeynin intuu awoodo waa mid anigu hay waaye dee way in twitterkaaga ama facebook oo kale waxaad ku qortay in adduunyadu aad ku weydiinayso cidda waddanka ka talisa su-aashaasi ay tahay su-aal kugu dhow madaxweyne farmaajo la tartantay uu kaa guulaystay isagaa madaxweynaha madaxweyne uma garan madaxweyne inuu yahay miyaanad adugu aqoonsanayn madaxweyne farmaajo waxaan sheegay walaal waxaan dadka kala kulmay waxaan ku qoray twitterkii facebookeyga waxaa waaye dadkii ii yimid markii dhacdooyinkii dhacayay maalmahan dambe oo dhan tii lagu duulay guriga senator cabdi qaydi kuwii ka horreeyay maamul goboleeda in lagu riday laisku dayaayey xildhibaanada leeyahay xasanada laga qaadaya waxaanoo dhan dadkii markay fiiriyaan waxay leeyihiin markii loo tago anu maan arag farmaajo laakiin dadka u tago wuxuu leeyahay maan ogeyn guriga cabdi qaydi in la baaray maan ogeyn guriga cabdirmacabshku in la weer amarka anigu ma bixin maamul goboleedka in la rido aniga maan ogeyn wax allaale wixii la yeela maan ogeyn marka waxaa soo baxday oo dadkii xataa adduunka beesha caalamka ani qofaan arag oo beesha caalam kamida ma jirto safaaradaha dhan waan arkay UN-ka African Union-ka safaaradaha meeshaan joogo galbeedka oo dhan waan qaabilay sababtoo ah keyskeyga wuxuu ahaa keys aad u weyn oo adduunkana isha ku hay waxaa la isweydiinaya su-aalaha weydiinaya waxay tahay dadka waxaan samaynaya ee ku kacaya ficiladan isdaba jooga ee keenaya in ay wadanku qalalaaso siyaasadeed galo oo xiisad iyo colaad ay ka dhalato magaaladan haddaad ogtahay haddii kaleba habeenkii ay ku soo duuleen gurigeyga subaxeedii qarka waxay u fuushay dagaal sokay inuu ka dhaco oo deegaanka ku taageersan deegaanka ku saabsan falceliskii ka yimid qarka loo ful haddaysan ahayn odayaasha deegaankana lagu baxsaday ee magaalada muqdisho weliba rag oo u weyn yahay imaamka beesha mudulwada lagu baxsaday inay gacanta qabtaan qabiilada intoodii kale haddayna taas dhici lahayd magaalada dhibaata ka dhici lahayd ayadoo saas taagan tahay senator qaydiid gurigiisii loo dhacay haddana si sharci darro ah oo lagu baaray oo lagu xariiqay oo lagu xaqiro dhibaato laga sameeyey waxaa la isweydiiyey marka cidda waxaan samaynaysa soo maaha cid rabta inuu meesha dagaal sokeeye ka dhaco ajnabi iyo soomaali saasaa la isku raacay dagaalkaas sokeeya iyadan ugu jirtaa al-shabaab marka waxaa soo baxday in dowladda dhaqanka shabaabka leh inay ama iyadu shabaab tahay ama dad shabaab la xiriira ay meesha awood ku leeyihiin si dalka u qasmo shabaabna ay u qabsadaan taas uma dadkii usoo baxday runtii waana serious waxaan ku sheegay wax cadayna taa ma loo haya cadeymuhu waa kala labo maxkamad ma joogin laakiin cadeymahan kuu kala sheegaya sidaba cadeymuhu evidencigana waa mid cad oo miiska la keeno midna waxaa la yidhaha circumstantial waxa aad u jeedayso nebi yuusuf markay tiri islaantii haddii shaatigiisa hore ka dilaacsan yahayne iyada un baa kufsanaysa hadduu gadaal ka dilaacsan yahayne hadduu hore ka dilaacsan yahayne asagaa kufsanaya haddii gadaal ka dilaacsan yahayne ayadaa kufsanaysa because gadaal waa ayadaa ka imaanaysa waa circumstantial evidence yaa la yidhaha annaga waxaan sheegaynaa xogaha iyo cadeymaha ku hareereysan waxa dhacaya markaa fiiriso waxaa kuu muuqanaya dalka inay jirto cid ka talisa inaan la aqoonin ma dhihi kara aniga hadda ertaan farmaajo oo madaxweyneha oo xukun rabo oo tala haysta yaa sidaas u dhaqmaaya oo qabaa'ishii iyo dadkii deegaankan degan kicinaya si ay uga hor yimaadaan oo leh 21 oktoobaraan soo rogayaa marshal law 21 oktoobar waa taariikh ku calaamaysan oo mugdi ah Soomaali dhexdeeda odayaasha gacanta ka qabteen labada aqal Jawaari iyo Cabdi Xaashi gacanta qabteen oo yiri xageed u socotaa ninka saas u dhaqmaya anigu ma dhihi karo waa nin raba inuu xukun iyo talo oo ku sii joogo si deganaan ah marka waxaa la isweydiinayaa haddii ninkii loo tagana dadka intay ii sheegeen waxay leeyihiin maan ogeyn wax walba marka hadduu asaga ogeyn waa inay jirtaa cid wax og oo wax maamulaysa ayaad aaminsantay in waddanka ka taliya aniga waxaan aaminsanahay koox yar oo filla Soomaaliya joogta oo xagjirnimo xoog leh aan ku tuunsanahay rabta dalka inuu qasmo dalkaana awal xoog iyo xagjirnimo inay ku qabsato isku dayday laakiin ku fashilantay inay joogto xilligeedaan sheegi doonaa adigu
cabdi qaydiid weerarkiisii maalmaha ka dambeeyey kaaga adigana weerar baa jiray in maxkamadda markad ka soo muuqatay waxa garmahaaga joogay xildhibaano ama dad ehelkaaga oo deegaankaaga oo badan baa joogay taa miyaan la odhan karin xukuumadda lafteeda deegaan ahaan baad ku macaaridayseen oo waxaad diidanaydeen awoodda aad ku leediin xukuumadda xasan khayre ayaa diidanaydeen oo sababaha keenay in la bedelo wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar axmed oo kale oo loo keenay sabriya oo kale imika dib loo keenay miyaa waxyaabaha la isweydiin karin oo wax aniga aan dowladdan aan ka dalbaday ama aan ka rabo hadeertaan ani maba jiraan oo xilalkooda ku caddeeyo waxaanse kuu sheegayaa wax dhibaato ah oo deegaan xaggiis ka jiraana ma jiraan laakiin dadka ayagaa moodaa dadkaa waxaa u soo baxday markay isku daya inay madaxweyne xaaf ridaan xukun ka ridaan ay ku fashilmeen oo xildhibaano maqaaxi intii isku aruursaday yidhi waa ridnay dowladdii sharci ay siisay oo la yidhi waa sax wax dhacay maaha xildhibaano inta maqaaxi fadhiisay yidhi madaxweyne waa ridnay sharci soo siiyey markay isku dayeen gurigii inay weeraraan dadna ku laayeen markay isku dayeen senator qaydiid dadka qaaraa waxa u muuqato waxaanu waa ujeedo ku aadan dad iyo deegaan mucayana ayaa soo baxday taas way dhici kartaa laakiin anigu ma rab in aad ugu sii galgalo laakiin ra-iisul wasaare khayre ehelaan nahay aniga dadka soo inay ogaadaan ninaan ehel nahay waaye waa ninaan saaxiib nahay waa ninaan asgaranayn wax dhibaata iyo wax cuqdada iyo wax mashaakil u qabna ma jiro farmaajo sidoo kale markii aan tartamaynay ana xashiiq aan kasoo horjeednay 18 murashax aan heshiis ku galnay in la taageero oo musharaxa ka horeeya oo codka siiyo aan kala saxiixanay xogeyn iyo secretariyadan lahayn waxaan kuu sheegayaa farmaajo markii codka la riday first roundkii ama wareegii kooda u dhacay qofkii ugu horeeyay la hadlaan ahaa aniga adarma abshir oo ii sheegtay maaragtay dad saaxiiba oo soo wada shaqeeyay oo wax isku leh oo ka dhaxeeyo isgarabsi siyaasadeed inaan nahay codkana maanta aan siino dadkii aan u tegey oon codka uga soo raadiyey keyga markii laga tago waxaa ka mid ahaa murashaxiin kale oo aniga aan saaxiib nahay oonan ahayn kuwii annaga nagu jiray 18 aan ka mid ahayn marka wax naga dhexeeyey horena ma jiraan wax anaga iyo asaga deegaan ahaan naga dhexeeyana ma jiraan deegaan waa wada degnaaba aniga si galmudug ka wada nimid oo deegaan waa isla nahay dad waxaan nahay taariikh siyaasadeed ahaan wax badan wadaaga laakiin ma u malaynayo inay jirto fiyoobi iyo caqli oo hadda asaga iyo khayre ay ku talinayaan meesha kama jirtee meesha dad baa ku dhex jire waxay u baahan tahay Soomaali iyo adduunkaba dadka argagixisada ee raba dalka inay dagaal sokeeye ka abuuraan si argagixisada ay mar kale gacanta ugu dhigto kuwaas u baahan in banaanka la soo miyaan la oran karin hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa jirta fursad ay mucaaradku waayeen ama cidda dawladda ka soo horjeeda ay weeyday oo ah in ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iskhilaafsan ay sunno u ahayd siyaasadda Soomaaliya inay ku soo noqoto tii markii ay muuqan weeyday in dhinaca kale mucaaradkii ay ka soo xoogeysteen oo ay doonayaan fursadihii khilaafka ee jiray ay kala mashquulin jireen mucaaradka iyo xukuumadaha marka fursadda markad weydeen ay noqotay inaad mucaaradad xooga dawladdii dhowr jeer waxaan maqlay in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahooda aniga ra'iisul wasaaraha isma khilaafsanin aniga madaxweynaha isma khilaafsanin isma khilaafi doono wasiirada hadda xilka laga qaaday kamid ah soo qoray bartiisa Twitterka iyo Facebooka in madaxweynaha u ballan qaaday 4 sano isla dhameysanayaan waxaas oo dhan waa dadka siyaasadda ku cusub wax badan aan ka ogeyn hadaladooda madaxweyne kasta markuu cusub yahayna iyo ra'iisul wasaare kastana saas weyn hadaa gaaw noqoto xasheeq iyo saacid waad maqlaysaa xasheeq iyo cabdiweli waa waxaas oo dhan waa iska jiraan wax macno leh maaha waxaa ka maqan aan kuu sheegaa marka dadka saas u hadlaya waxaa ka maqan aniga adiga hadda interview baad iga qaadaysaa meel fiican aan fadhinaa aad u qurux badan kaamarooyinkaa shidan xaaladda way noo fiican tahay laakiin hadduu roob xoog la soo doo meesha ma fadhinaynaa aniga adiga ma fadhinaynaa meesha hadduu roob ku soo doo maan fadhinayno laakiin ma jecla inaan ka kacno interview inaan dhammayno hawsha wadno waxaa ka maqan nimankan hadda talada haya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isjaceylkooda iyo isku dhawaanshahooda maaha waxa ay ku wada joogayaan waa duruufta siyaasadeed ee abuurmaysa say u maamulaan ay ku wada joogi karaan saas daraaddeeda waxa dadka ma jiro ra'iisul wasaare jeclaa madaxweyne kasta 3 ra'iisul wasaare soo martay dalkan kuka 3 maxaa 3 ka dhigay waa inaad weydiisaa waxa weeye ra'iisul wasaare jeclaa inuu madaxweynaha ka hor yimaado oo xukunkiisa oo waayo ma jirin
laakiin waxaa imaanaya duruuf sida ani adi hadda u jecelahay in interviewga dhammeyn hadduu roob soo dan u kala cararayno duruufta siyaasadeed siday u handhal gareeyaan ama u maareeyaanay ku xiran tahay kartidu halkaasi ku jirtaa laakiin aniga waxaan qiimeynayaa khayriya farmaajo say duruufaha ama dabaylaha ama mawjadaha siyaasadeed ayagoo wada jiro u maareeyaan yaan fiirinayna adigu hogaamiyaha ka tahay sidaad u aragtaa isbedelka lagu sameeyey saddexda wasiir ee arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo ganacsiga iyo warshadaha waan la yaabay waxaan ula yaabay waxay tahay wasiiro kalaa bannaan oo xilkooda la buuxin laba wasaaradoodaa bannaan ilaa hadda xilkooda lama buuxin wasiirka difaaca in badan oo bannaana haddaa la buuxiyey xilkiisa taliyaashii ciidanka ugu muhiimsanaa xagga amniga yaa xilalkooda bannaan yihiin lama buuxin safaarado badan ayagoo bannaan yihiin yaa 10 safiir gadaal loo soo celiyey oo muqdisho la keenay ilaa hadda lama buuxin bal safaarado kale hadda lasoo baneeyey wasiirada mid kamid ah la ii sheegay inuu safaarad joogay laga soo qaaday ma filaynin wasiiro shaqaynaya oo say sheegeenba ayagoo shaqo loo diray oo midna subaxii laga sugayo golaha wasiirada midna loo diray Puntland inuu madaxweynaha uga hormaro loo sheegin aniga ma filayn xil laga qaadayo waxaan filayaa haddii wax sameynaya inay wasaaradaha banaana buuxinayaan taliyaasha ciidankan ay magacaabayaan waxa ayaga ka dhiman safaaradaha bannaan ee tobanka iyo kuwii hore u bannaana inay buuxi doonaan in waxay xayeysiiyeen xoogayaasha joogtada agaasimayaasha shaqadooda inay dhammaatay shaqo soo dalbadaan macnihi waa bannaan yihiin wasaaradaha hadda waxaan u haystay inay maamulkooda dhammaystirayaan laakiin wasiiro shaqaynaya oo socdaa xil laga qaadaya yaa kuwo kale haddana la keenaya waxaan u fadhiya ma ahayn laakiin aniga waxaan u haystaa inay kamid tahay jahawareerka siyaasadeeda haysta farmaajiya khayre buuxin la-aanta aad ku eedeynayso wixii waa dowladdu way sal ballaaran tahay waa dowladdu cudud badan tahay waad garanaysaa waad soo martay dana siyaasadeed siyaabo kala duwan bay u shaqaysaa waxbay ka fiirsataa waxbay eegtaa yaan la odhan karin fursadaha haddii de safira loo yeedhay ku-xigeenadoodii shaqaalihii kalea joogo wada wasiirre hadday bannaan yihin ku-xigeenadoodii haddii taliyaal ciidan badan yacni dowladdu way sina ballaarantay marka xagga dhinacaa ka eegaysa in la buuxiyo ay tahay miyaan jahwareerkan mucaaradada xoogii aad kala hor timaadeen inay iska awdo fursadaha ay ku malayn karta adiga deegaankaagii yani waxay keentay qof deegaankaagii qofkii kugu dhawaa inuu noqdo wasiirka arrimaha gudaha culayska kaga yimid deegaan beeshaadoo kale taasoo kale miyaanay istaraatiijiyad siyaasadeedoo saxa ahayn si dadka adiga ku raacsan ay u raacaan wasiirka arrimaha gudaha fursadda halkaa u siiyaanay mucaaradada adiga ku raaciyeen dowladda u raacaan taasoo kale miyaanay istaraatiijiyad siyaasadeed dowladda ahayn waa arki doonaa say u shaqaysa laakiin waxaan kuu sheegayaa aniga waxaan filayaan ku dhahay su-aasha reshafalka ay weydiisay ama shaandhaynta aniga waxaan filayaan ku dhahay wasaaradaha bannaan in la buuxiyo waxaan filayay jagooyinka xilalka muhiimka 60 maalin ka badan 2 bilood iyo jagooyinka bannaan yihiin taliyaasha in la buuxiyo safiirada bil 2 bil 3 bil ka badan la soo celiyay magaalada joogaan oo xilalkoodii la buuxin safaarada muhiim ah tusaalaan ku siinaya safaaradda Nairobi aniga haddaan dalka madax ka ahay labada dal ee ugu muhiimsan markaan Soomaaliya joogo waa Kenya iyo Ethiopia safaaradda Kenya waxay bannaan tahay sanad ku dhow ninkii joogana wasiira laga dhigay safaaraddina way bannaan tahay marka waxaad garanaysaa waana arkaysaa diblomaasiyadda markaa safaaradda hoos u dhigto oo safiir ka qaado dalka wuxuu u qaadanayaa inaad hoos u dhigto xiriirkii sababtoo ah safiirka markaa qaadato ood soo magacaabayso safiir oo charge affair uga tagto macnaheed dalkaas xiriirkiisa inaad hoos u dhigtaa loo qaadanaya safaaradaha hadda lasoo qaado bil ka badan jooga wadamada laga soo qaaday kulligood waxay u qaadanayaan charge affair markii looga tago in xiriirkii dowladda ay hoos u dhigtay fiiri waxa loo buuxi laayahay oo dhowr wasiir hadda loo bedelay oo shaqaynaya oo wasaaradahoodii jooga oo weliba habeenkaas shaqo loo diray oo subaxii mid kamida oo u dhoofayay Puntland shaqo xilka looga qaaday oo lagu ixtiraami waayo xataa in loo sheego xilka waa linka qaaday waxaan ogahay wasiiradaas aniga aan ka warqabaa markii xilka la siinay waa loo yeeray waa loo sheegay ra'iisul wasaaraha loo geeyay madaxweynaha loo geeyay xilkaas la siinay waxa ugu yaray ixtiraam ku lahaayeen waxay ahayd intii inay kula kacaan meeshan waxaa muuqata dad aan wax ixtiraam ay u hayaan xataa wasiiradii ayaga u dhimanay oo qaladka markuu dhacayo codka siinay culayska siyaasadeed dhinaca wasiirada ma aaminsantay inuu xaggaaga ka yimid wasiirada isku deegaanka tiino wasiir isku deegaanna xil laga qaaday mid isku deegaanna xil la keenay wax macnaha korinaysa anaga jirta ma aaminsantay inuu saameyn siyaasadeed oo mucaaradadiina ay keentay maya ma aaminsani way dowladdu ilaa hadda sanad ku dhowbay joogtaa maxaad aaminsantay inay ku guuleysatay fursad ay samaysay dadka u shaqaysay ay horumar ka samaysay maxaad qirsantay maadaamaad mucaaradtay waxbaad ogtay waxna ma ogin waxbaad diidantay waxna waad qof kasta walaal qof kasta waxay ku xiran tahay qiimeynta angalku ka fiiriyo
dadka qaarkood hadday ka fiirinayaan in dhowr maalin lasoo baxo dhulka la xaaqay in jidadka ayaa nadiifiyeen in maaragtay dhalinyaro badan twitterkii facebooka lagu soo daayey in maaragtay la yiri musuq maasuq aan la dagaalamayaan inkastoo maqlayay maalin ka hor ra-iisul wasaarahoo le musuq maasuq baahsanaa dalka ka jira lacagihii dowladda qasnadihii laguma shugo meel kale lala aada as afkiisa ka lahaa asaa isqiimeeyey dabcan waxaasoo dhan waa maqlay laakiin aniga 3 meelaan dowlad sideedaba ka qiimeeya cabdiraxmaan haddaan ahay qiimeynteedaan kuu sheegay sida ay u soo yarayso qaybsanaanta ama kala fogaanshaha Soomaali dhexdeeda yaala oo si xasilooni siyaasadeed u abuurto dowladda waan ka fiiriyaa aniga dadka Soomaaliyeed waa kuu sheegay awoodihii waa la kala qaatay gobollo iyo deegaano iyo qabaa'ilaa weli gacanta ku haysta sida dowladda ay xiriirkaas u soo ama gaabkaas ama farqigaas u soo yarayso ay u abuurto xasilooni siyaasadeed waan ka qiimeeyaa uma jeedo waxaan u jeedaa kala fogaasho dowladdii iyo gobolladii isku dhacsan ilaa gobolladii samaysteen ayaga wax u gaar ah hay-ad macnihii gole u gaar ay abuurtaan waxaan u jeedaa siyaasiyiintii iyo qabaa'ishii muqdishii dowladdii isku dhacsan oo iska hor imaansan hadda waa gobolladii muqdisho Soomaaliya soo ma labadii inay kala fog yihiin dowladdii ay muuqata dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo parliamentariankii iyo dowladdii in la keeno madaxweynaha in la impeach gareeyo mooshin laga keeno asoon sanad gaarin waa siyaasad xumo waa qodob taas uma jeedo wax horumar oo ka dhacay qaybta labaad waa amniga oo xagga security-ga maxaa laga qabtay shabaab la dagaalankooda dhismihii ciidan Soomaaliya oo qaran oo muunad qaran leh oo loyal u ah state-ki iyo dowladda ma la dhisay ma laga guun gaaray in la joojiyo dhibaatooyinkii amniga uma jeedo bal waxaan u jeedaa dowladdii si ula kac in amni darro iyo xasarad siyaasadeed ayadoo abuurayso midda saddexaad oo qiimeynta aan siinay dowladda qiimeeya tiri fursad isii mid saddexaad oo qiimeynta aan ka fiirinayo waxa waaye Soomaaliya iyo xaaladda hadda gobolka uu ku jiro waana ku sheegay aniga markaan khudbada ka jeedinayo baarlamaanka ama murashaxa ah waxa soo socotaan waan ka digi Soomaaliya waxa ku soo socotaan dhahay geopolitics ama loolan juqraafi siyaasadeed oo aad u xoog badan yaa mandiqada ku soo socda Soomaaliyadana qayb ka tahay sida Soomaaliya u maareynaysa waxay u baahan tahay si taxadar leh miisaaman xilkasnimo ay ku jirto siyaasad gaamurtay oo guun ah in lagula macaamilo tiina uma jeedo waxaan u jeedaa loolankii Soomaaliya u saameeyay inay halis tahay juqraafi ahaan maxay iska bedelay baad leedahay aaminsantay su'aal aad muhiim markan halka ka sii fikiraysa adigoo musharaxa yani maxaa iska bedelay waqtigan baad aaminsan Soomaaliya waxay ka mid tahay dhinacna waxay ku taala Afrika laakiin dhinacna waxay ka mid tahay bariga dhexe dhaqan iyo xiriir ahaanba iyo diinba bariga dhexe ka tirsan tahay bariga dhexe loolan xoog leh oo siyaasadeed ka jiro waa la socotaa waa kan khaliijkii haystaan waa la socotaa waa Iiraan iyo Sacuudiga dhinac iska haystaan waa la socotaa oo Turkiga iyo Imaaraadka iyo haystaan iyo dowladihii Sacuudiga marka waxa ka socdo waa la socotaa waxa Syria iyo Liibiya iyo ka saameyn tartanka saameyn buu ku yeelanaya Soomaaliya sideedaba waxa dowladnimadeedii dumiyaba asaas ku ah waxay tahay fashil aan ku fashilnay maareyntii dagaalkii qaboobaa u dhaxeeyay Mareykanka iyo Ruushka waxa aan halkaana dhigay ee dagaalkii Ethiopia aan la galnay iyo wixii caqabadii ka yimid ay ahayd waxa meesha yimid marka Soomaaliya markasta meesha ay ku taal adduunka iyo gobolka meesha ay uga taalo iyo muhiimadda istiraatiijiga ay leedahay markasta waxay dhigaysaa inay noqoto meel loolan siyaasadeed aan ka marnayn marka taasa u baahan awood iyo maskax iyo caqli iyo talo aad ku maareey karto inaad leedahay oonan ahayn talo lagu maareey karo Facebook iyo Twitter account mid lagu wadi karo ma si aan ila si u maareysay mid si khaldan baad u aragtaa arrimaha xukuumadda miya aniga uma jeedo maareyn sax oo la maareeyay siyaasadii ka jirta gobolka iyo loolankii gobolka ka jiray iyo hadda waxa dhacaya dowladii hadda dariska nala aha ya ka socotaa siyaasad isbedel oo xoog leh isha ma ku haynaa kuma hayno kuwii yara naga fogaa bariga dhexe saameynta xoogna loolana ka isha ma ku haynaa kuma hayno uma jeedo marka cid ka fakeraysa loolanka siyaasadeed gobolka jira si u maareeled uma jeedo waa qodobka saddexaad oo qiimeynteeda ka fiiriyay saddexaas markaan qiimeeyo anigu dadka qiimeeya xataa ma ihi wali lamaba gaarin good governance iyo human rights iyo corruption la dagaal iyo dowlad wanaag iyo Soomaaliya kullu waxaas uma joogto ninka ku hadaaqana waa inaan garanaynin Soomaaliya meesha ay joogto Soomaaliya maanta waxay joogtaa dadkeeda in la isku keeno dastuur ay ku heshiyaan heshiis bulsho ay dhameystirtaan sidii amniga loo sugi si doorasho loo galo aan uga baxno doorashadan dadban ee 10 sano aan ku soo jirnay aan uga baxno waxyaalaha asaaska ah oo asaliga ah
ama mudnaanta leh Soomaaliya kuwaas waaye laakiin ninkii isu istaagay jidar xaaqay iyo account lacag ka soo bixiyay mid kale aan ku shubay iyo waxaan iri dawlad wanaagan sameeyay iyo islaamaheesii iyo gabdho maaragtay la soo buuxinay dhalinyaro iyo aniga mu hayso wax sida dawlad horumarkeeda bangiga adduunka ama hay'adda IMF oo kale waxa sheegtay in dhinaca musuqmaasuqa dadaal badan Soomaaliya ka sameysay waa lagu amaanay in kastoo ay doonayaan dadaalka ay wado xukuumaddu ee mar walba ka hadlayaan yahay in la dabargooyeen tahay ama si xaqaa'iq furan uga hadlayaan in musuqmaasuq jiro waxyaabahaas miyaanahay guud xukuumadda aan ku sheego dawladdan waxaa lagu yaqaanaa waxa laali iyo wixii nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam bu'ithu li'utamima makaarim al-akhlaaq waxaa la soo saaray akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhammaystiro dhahay ma dhihi inaan bilaabo nimanka hadda waxaa lagu yaqaanaa wax walba ayay ka bilowdeen 27 sano ko annagaa bilownay IMF-tan kuu sheegi Soomaaliya dawladda Ingiriiska waxay u loobi gareysay IMF iyo World Bank waxaa la yiraahdo Brentwood Institutions in Soomaaliya deynta la siiyo garantiga World Bank oo bixiya amaha si loo siiyo Soomaaliya debt relief in loo sameeyo process la geliyo marka oo dawladda tan ka horeysay ay soo bilowday waxyaalaha marka lagu qiimeeyo halbeega waxaa kamid ahaa dawladdu sida ay qarashka soo gala iyo midka ka baxa ay isku jaangoyso ko labo sida ay waxa la yiraahdo staff monitoring report sida mishaarka loo siiyo oo dawladda Norway qayb kamid ay ka beysay dawladaha budget support ka bixiya sida loo bixiyo mishaarka staffka dawladihii hore marka dawladdii Xasan Sheekh tan ka horeysay 4 sanaba si waxay u waday meelaha ay progresska ay ka sameeynayay ayaguna intii ay joogeen bay intii ay sameeyeen oo sanadihii la rabay inay socoto wali qaar ka dhiman marka reportkii bay buuxiyeen intii laga rabay laakiin waxa hadda ayaga bilaabeen oo IMF kala hadleen oo waa waxyaalaha aysan xataa kari karin wixii ka horeeyay sida nabigeena uu yiri akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhammaystiro dhahay dawladnimadana maxaa waaye wixii ka horeeyay inaa sheegto meesha aniga aan dawladnimada ka keenay Cabdiraxmaan Abshakuur wada hadal iyo dibashidiinayeen oo compromise xoog leh ururkii xooga badnaa ee ARS iyo dawladda TFG madaxweynaha ka Allah naxariista Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyay waxaan nagu adkaatay ciidamada dawladda TFG iyo kuwii maxkamadaha ee ARS hogaaminaysay in la isdhex geliyo process iyo dhibaato nagu qaadatay waxaan ku darnay tii laga horeysay waxay ku dartay tii ka soo horeysay waxay ku dartay tii laga dambeysay waxay ku dartay nimanka laakiin waxay keeneen annaga bilaanay wax walba annaga bilaanay dadka Soomaaliya 27 sano ko wax walba annaga bilaanay hadda say dawladdu 7 bilood 9 bilood wax walba ay u bilawday suuragal ma aha hal mar nimankaas ka maqlimaysid waxa appreciation ama wax aqoonsiya oo dadka ka horeeyay leeyihiin Cabdiraxmaan Abshakuur ma dareemaysaa inaanay dawladda fursad siyaasadeed oo ay wax ku hogaamisay wadanka si fiican ay waqti ugu qaadataa idaan siin maadaama sanadkii ugu horeeyay taa ma dareemaysaa adigu waxaan u dareemaynin waxaad ku noqotaa Twitter account-kayga iyo Facebook-kayga ayaga marqaati ah 7 bilood ugu horeysay dawladda waxaan qoraayay fiiri waxaan qoraayay talo aan dawladda siinayo bogaadin waxa qabta aan bogaadinayo meelaha aan rabo inaan ka toosinayo laakiin waxaa noo soo baxday inaan cid tala inay dhageysato rabta jirin Cabdiraxmaan keliyana maaha gobolada maxay ku maagtay oo duulaan ku qaadeen waata laga soo bilaabo xaaf ilaa Axmedoobe ku geey duulaan ku qaaday ma dawladda mucaaradeen maxay ku maagtay ilaa ay lafoodii la baqaanay dhahaan ba sameeystaanba gole ay ku mideysay maxay ku maagtay ma gobolada maaga dawladda maya African Union warqad ka qoreen waxay dhaheen ciidamada aan meeshan ku joognay waxay dhaheen waxay galaan lama arkay America naga soo gaar African Union dawladda maxay ku maagtay annaga ka faka weyni oo dacaayad iyo wiilal Facebook inta laga soo buuxiyay gabdho maalin kasta kugu caynay Twitter account iyo Facebook kugu caynay war ayaga nimankan ayaga dacaayadooda iyo aflagaadadooda laga baxsan waay intaas ma aha wax keenay kaliya waxa keenay dadkii rabaan inay huuhaa iyo waxaan jirin iyo baan u sheegaan inay shaqo socoto annaga marka xilaa naga saaray inaan sheegno war shaqo socoto iyo huuhada meesha durbaankan la garaacayo iyo 27 sano markii ugu horeysay aan la daldalay wax ka jira mal inaan niraano waa mas'uuliyad akhlaaqiya waa mid dastuuri ah waa mid siyaasi oo nasaaran way gabagabadii hogaamiye adigu inta badan dadku waxay kugu dhaliilayaan oo ay leeyihiin Cabdiraxmaan Abshakuur deegaankiisa mucaarad hadal aad maalin dhaweyd live ka sheegtay oo aan ka daawanaynay baraha bulshada inkastoo markii dambe aad haddana ka hadashay wuxuu sheegay dadkii annaga martida noo ahaa inay haddana dhinacan marka qaran doonaysaan haddana qabiilka xoog badan yahay meel oo ninkii wali Soomaaliya qabiilkii baa culays ku hayo qarannimadan aad raadinaysaan
aad bay u adagtahay in fursadeedu ay timaado marka hadalladaas waan ka jawaababa aniga waxaan aaminsanahay cabdiraxmaan rig hore uu leeyahay soo taagnaa saaxiibo siyaasadeed aan leeyahay oo deegaano kala duwan leh siyaasadda aan ka wada shaqaynay jaal aan nahay aan hadda ku wada jirno maalin nin lagu tuhumiyey in uu deegaan xigsanayo ama qabiil uu kasoo horjeeda ma jiro laakiin siyaasadda soomaalida waa 4.5 hadda say ku dhisan tahay 4.5 ay ku dhisan tahay oo qabiil ah waa midda aan rabno intaan ka gudubno aan u gudubno nidaam xisbiya oo siyaasadeed sida Soomaaliland hadda ka dhacdo kale oo dadku xisbiye ay u codayaan iyo madax xisbiye iyo program siyaasadeed u codayaan waa midaan u socono on gaari laana wali taasa marka waxay u baahan tahay kala guurka laga guurayo qabiilka loona guurayo xisbiga in si waxay u baahan tahay xilkasnimo ah oo maaragtay maangalnimo leh oo maaragtay bisayl leh in loo maareeyo waan sheegay anigu qabiilka dhowr jeer aan sheegay wuxuu ila mid yahay siyaasadda Soomaaliya markii la yiraahdo doontoo kale doon ama soo kartaa biyo la'aan doon ma socodsi kartaa meel aan biyo lahayn qabiilku waa biyaha kale doontana waa dawladnimadii marka doontaas waxay u baahan tahay inay ku kor socoto biyaha si ay u socoto laakiin haddii biyaha soo galaan doonta way qarqmaysaa soo maaha waa in laga ilaaliyaa biyaha laakiin lagama maarmo haddana biyihii in doonta ku socoto waa aad waxay u tahay complicated aad waxay u tahay arrin u ah maaragtay mucaqad ama adag ay u tahay marka hoggaanka Soomaaliya imaanaya waa inuu soo fikiraa qabiilkii dawladda ku dhisan 4.5 lagama maarmo laakiin waa in si doontii lagu kor socodsiyaa sidii dhinaca kale ammaanka ah ay doonta bariga dhinaciisii kale ay ugu gudubto biyihii laga ilaaliyo inay soo gelin doontii xilkasnimadaas iyo xikmadaas waxay u baahan tahay hoggaan iyo caqli iyo garaad iyo bisayl iyo guunimo lagu maareeyo u baahan tahay marka anagu dadkii mi caadifada beenta sheegay dhahaya Soomaaliya qabiilka ma jiro anaga qabiil ma anu qabiilaan ahay qabiilaan ka dhashay deegaanaan ka dhashay ayagaan matala laakiin waxaan u socdaa qarannimadii rabnaa inaan gaarno kala xigtaysto miyaanay waa taan ku leeyahay waaba doontii biyaha soo dad in la kala xigsado ma bay kala xigaan ba aniga dadka Soomaaliyeed kulliyeedu waa ehelkay waa qabiilkay meel kasta ay joogaan isku helaana isku qabiilana Soomaalidu waa isku hal qoysba laakiin anaga rabnaa qabiilkii aan baxno qarannimo u baxno dawladnimo u baxno taas u baahan marka waa mid aan ku leeyahay madax kasto Soomaaliya timaada waxay u baahan tahay cashara adag oo waaweyn maaha siyaasaddu maaltaajirnimo maaha qof inta la iska keeno la iska leeyahay xilka ugu sareeyo jug iska qabsan waa hadda 100 milyan halkan kaaga soo baxdo iska qaadato meelaad geynaysa ma jirto inaad ogaataa ra'iisul wasaare khayrle dadku waxay leeyihiin deegaanadii ama beelihii inta badan prime ministerka noqon jiray kamuu imanin oo sida deegaankaaga oo kale deegaanada kale Muqdisho oo kale kamuu iman sababtaas keenaysa culayskan siyaasadeed oo xukuumadda haysta taamad aaminsantay ma aaminsani khayre deegaanka sheegtay haddaad ka wada hawiye khayre waa nin hawiye deegaankan uu ka tirsan yahay waa nin hawiye ah dadka deegaankan uu ka mid yahay ugu miisaanka iyo xooga badan maalintii la ansixinayay si majority lagu ansixiyay codka kalsoonida waa la siiyay qabaa'isha dhan iyo odayaashu u tahniideeyeen laakiin waxa kala laba ah xilki in lagu magacaabay xilki inaad haysato khayray ku xiran tahay qabiilkiisa kuma xirna xilka khayra la rabaa dadka siyaasiyiinta iyo dadka oo u arko sidoo markaa siyaasi tahay laba meel inaa fiiriso waay maxay yihiin manbaca ama masdarka ama sourceska saameynta kula siyaasadda dhinaca togan iyo dhinaca taban labadaba marka adaa laga rabaa markaad aad soo qabato oo darasto yaa waaye ilaha awoodeed ee adiga saameyn togan iyo taban kugu leh inaad maareyso adaa laga rabaa marka khayr hadduu taas keeni waayo ama farmaajo uu keeni waayo lama dhihi karo marka waxa lagu diidan yahay waa deegaan ama beel khayr laguma diidana deegaankan uu ka dhashay anigu nin ehlaan waa kugu celinaya waa kuu sheegay weligii taas kuma diidin cid ku diidana maan arkin laakiin waa laga dhiga karaa dadka qaarkood ooyintii iyo xaaska inay ku marsiyoodaan wax socdana maaha laakiin dadku deegaanka kama xigo qabiilna lama kala xigo qabiilkana sidiisa waataan kuu sheegay magac la wadaaga waayo dadkuna kalama xiga marka ani ma aaminsani marna taas inay tahay wax jira ma aaminsani haba yaraatee go-aankaagii ugu dambeeya muxuu yahay marka arrintan taagan ee maxkamadda waan sheegay maalin wadan cadeeyay anigu cadaalad waan maray ayadoo waliba si dulmi aan ku maray
maxkamadda waxaan ka codsanayaa hadday cadaalad ka shaqaynayso, hadday islaamnimo ka shaqaynayso, hadday sharci ka shaqaynayso, xeelinta ha ku amarto inuu dacwo ka furo dadkii gurigaa lagu laayay, meydkooda la aasay, ayuu ehelkooda arag, la xasuuqay, dhibaatadii aniga lii geystay dhaamejkayga ilaa hadda hantideydii waa la boobay, qalabkaygii, kombiyuutaradaydii, dukumiintigaygii, hantidii aan lahay guriga ii taalo dhan waa la qaatay. ilaa hadda waxaan ka hay cid weydiisana ma laha. hadday cadaalad jirto oo dalku dad cadaalad ka jirto oo wax yarba ay jiraanba, maxkamadda waxaan ka codsanaya inay xeelinta ku amraan inuu baaritaan ka sameeyo, inuu dacwo ka soo oogo. dadaa la dilay amay dhihi kartaa dacwo la-aan waaye, dad la laayay amay dhici kartaa inay dacwo la-aan noqoto. dadkii dadka laayay, dadka geystay xasuuqa, ayagoo dhan marsiinin ehelkoodii tusin aasay, haddayba cadaalad jirto kuwaasaa laga furo kees iyo dacwad. adaa mudan. daawadayaalkaasi waxau ahaa hogaamiyaha xisbiga wadajir ee magaalada muqdisho ee soomaaliya, mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, iminkana ah siyaasiyiinta sida xooga ah u macaaridaya xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre, isla markaasina aada ogeydeen muddooyinkii ugu dambeysay khilaafka siyaasadeed ee soo xoogeysanaya ee siyaasadda soomaaliya kusoo kordhay inuu qeybkayey cabdiraxmaan cabdishakuur. barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdiriga, tan inta ku kulmi doona haddii allah uu diraado barnaamijkan mid lamid ah. waxaan ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.